بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaynu ka warrami doonnaa haddii ilaahay inoo idmo insha allah caalamka dahsoon ama inaga aan inoo muuqanin ee ah caalamuljinni waashayaatiin, caalamka jinka iyo shayaadiinta. run ahaantii qofka inta badan wakhtiyadan qofku marka uu maqlo jin ama shaydaan waxaa iska gelaysa cabsi ama argagax ka dareemaya, si buu u warwarayaa qofku, sababtoo ah waxaynu siinay jimanka iyo shayaadiinta awood aanay lahayn oo fara badan. waxyaalo badan baynu ka aamin oo u badan khuraafaad, oo u badan waxyaalo badan oo aan saxiix ahayn. marka qolo inaga mid ahi waxaynu ka aaminay inay iyagu leeyihiin awood iyo quwad la yaab leh oo ay ku garan karayaan mustaqbalka iyo qaybka, iyo ay ku garan karayaan waxyaalo badan ay dhib badan ku geysan karayaan. qolo xaggaasi ku talax tagtay, qolo kalena waxay ku talax tagtay xaggan waa khuraafaad oo wax ka jira ma jiraan, qolana xaggaasay martay. subxaan allah. insha allahu tacaala si dhexdhexaad ah ayaynu uga warrami doonaa, innaga oo aynan cabsina dadka gelinahaynin, laakiin xaqiiqada iyo waxyaalaha saxiixa ah ee soo aroorayna ka warrami doono. marka koowaad, jiritaanka. horta jinkani ma wax jiraba? iyo shaydaankan iyo ibliis miyay jiraan? dabcan haa, waana muhiim inaad rumaysid, sababtoo ah iimaankaagabay ku xidhantay. ruuxuna muslimka hadduu rumayn waayo, xukunka la saaro ama xukunka ka soo baxa waxa weeye waa gaalnimo ama kufr. aan inoo caddeeyo sababtu waxa weeye jinka kani inuu nool yahay oo uu jiro, iyo shaydaankani inuu jiro, ibliis lacnadig dushiisa ha fuushee. waxaa inoo caddeeyey qur-aankii kariimka ahaa, waxaa inoo caddeeyey sunnahii nebiga, waxaa kaloo culimmadii islaamka oo dhan baa isku wada waafaqay dhammaantood. idan meeshu wax yaalla daliil, xujo cad baa taalla. qofka markaa ruuxa diida xujadaa cad, isagoo ogoo aan jaahil ka ahayn ama aanay aqoon darra u keenaynin, waxay arrintaasi ku keenaysaa inuu diintaba ka baxo, walciyaadu billah. bal aynu soo qaadanno qur'aanka kariimkaahi daliilada waaweyn ee cadcad ee uu inagu sheegayo jiritaanka inay jiraan shayaadiinta iyo ibliis iyo jinku guud ahaan. allah subxaana wa tacaala wuxuu u bixiyey kitaabkiisa qur'aanka suuradan oo ka mida suuradaha qur'aanka kariimka ayaa waxaa la suurat aljin, suuraddii jinka. suuraddaasi aayadda koowaad waxayna leedahay: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. waxaad dhahdaa buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala rasuulka ilaahay, waxaad tidhaahdaa waxaa lay waxyooday inay i dhegaysteen ama inay dhegaysteen koox ka mid ah jinku qur'aanka kariimka, deetana ay dhaheen إنا سمعنا قرآنا عجبا، وحن مقلنا قرآن عجبا، قرآن عجيبا، والله ياب لا أيان مقلنا. طبعا آيات كفرها بدن كتاب القرآن كبصا أروري وي بدين هنا الماما يا مكور رما يجنك وإذا صرفنا إليك نفر من الجن، يعني سورة الإحقاف. والله سبحانه وتعالى وكجور رمي ما لبدن آية بدن بو الله سبحانه وتعالى كتاب كيس القرآن كجور رمي جنك ين أوجرو أو كميدها مخلوقات كي أنك إلهي وأبوري. سيدو كلا حديث رسول رضوان صلى الله عليه وسلم نسقنا وين جور رمي رسول كين، وحنا سوق هذا كرنا هل حديث بينه فلان حديث النبي جن وليه صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، ملائكة وحلقة أبوري النور، وخلق الجن من مارج من نار. jinkana waxaa laga abuuray dabka ama holaca iyo ololka dabka naareed ayaa laga abuuray. wakhuliqa aadamu mima wasifa lakum, aadamna ama nebi aadamna calayhi salaam waxaa isna laga abuuray wixii laydin sheegay oo ahaa dhoobadii iyo ciidii. xadiidkanna waa muttafaqun calayhi oo waxa isku waafaqay labadii sheekh, imaamu bukhaari wa imaamu muslim. xadiidkaas iyo xadiisyo kaloo fara badan baa jira oo inoo tilmaamaya inuu jinku uu jiro.
sidoo kale culimada islaamku dhammaantood way isku waafaqeen ibnu taymiya sheekul islaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay dhammaan dawaa'ifta iyo kooxaha islaamku waxay isku waafaqeen jiritaanka inuu jinku yahay wax jooga oo jira sidoo kalena guud ahaan gaalada hadda waa dadka gaaleed ee diimaha kala haysta iyaguna way aaminsan yihiin in jinku ay jiraan oo diimaha aan odhan karin ahlulkitaabka nasaarada iyo yahuuddu way rumaysan yihiin jinka sidoo kale majuusiyiintu way rumaysan yihiin hinduusku way rumaysan yihiin diimaha badan ee dunida ka jirto dhan way rumaysan yihiin waxa jinka la dhaho qiyaaska caqliga bini aadamkuna waxayna siinayaa in ay dhici karto in ay jirto waxaanay bini aadamku arkaynin waayo bini aadamka ishiisu ama araggiisu way koobantay xaddi go'an bay wax ku aragtay tusaale yaraan ku siiyo ilayska qaar ma arag tusaale ahaan ilayska wixii la yidhaahdo underviolet wixii ka hooseeya midabka buluug maariga ma aragno wixii ka sarreeya above the red casaanka midabka casaanka ah ee guduudan wixii ka sarreeyana ma aragno oo tusaale ahaan qorraxda ilayskeedu markay ku dhacdo roobka waxaa ka dhalata jeegaantu 7 midab bay leedahay 7 midabka ugu sarreeya waa ka cas wixii ka sarreeyay inagu ma arkin isha bini'aadamku ma qabanayso ka u hooseeyna waa midabka buluug maariga kaana waxa ka hooseeya ma arkin marka isha bini'aadamku waxa weeye way koobantay wixii wax meel gaaban bay wax ayay ku arki kartaa in xadidan buu Allah subhanahu wa ta'ala u sameeyay inay wax ku arkaan sidoo kale maqalka bini'aadamku isaguna wuu xadidan yahay oo codadka u dheer ma maqlaan bini'aadamku codadka u gaabanna ma maqlaan bini'aadamku oo ilaahay ba xad go'an siiyay haddii ay cod kastaba maqli lahaayeen may noolaan lahayn bini'aadamku way dhiman lahayn waa waxay ka mid tahay nicmooyinka waaweyn ee Allah subhanahu wa ta'ala uu ku nicmaystay bini'aadamka inuu sameeyay aragtidiisii wax xadidan maqalkiisina wax xadidan idan qiyaaskuna wuxuu inoo tilmaamayaa inay dhici karto noole ama makhluuq aanay bini'aadamku arki karin maqli karinna haddana jira marka aayaadkaas iyo daliiladaasi waxay daliil u yihiin caddaan ah oo waadix ah qof kasta oo muslim ah inuu jinku wax jira oo jooga u yahay culummadu waxay dhahaan haddaba ciddii dafirtay isagoo og yacni isagoo aan jaahilka ahayn ama aanay qondarro u keenin ama aayaadka iyo daliilada aan ogeyn ciddii dafirta ama diidda tidhaahda jinku waa khuraafaad wax jira ma aha kaasi waa kaafir waa murtadun can ilislaam waa gaal caddaan ah oo diintii islaamka ka ridoobay sababtoo ah aayaad qur'aanka ka mid ah ayuu dafiray axaadiistii rasuulka ka sugnayd ayuu dafiray culummadii islaamku waxay isku waafaqeen buu bannaanka ka maray subxaana allah labana kala saar jinku wuu jiraa iyo cabsida laga qabo jinku wax jira ma tusaale ahaan qofka hadduu dhaho jinku ma jiro oo uu dafiro kaasi waynu ka warramnay inuu ku gaaloobo laakiin hadduu ruuxu dhaho cabsidan badan ee bani aadamka ku jirta ama kaga jirta xagga jinka iyo shayaadiintu wax jira ma aha taasi waa qowl qofkuna kuma gaaloobayo waxaana dhici karta inaad adigu saxiixba tahay ama aad u dhowdahayba xagga saxda aad u dhowdahay sababtoo waxaa iska jiray xilliyada tan waxyaalo fara badan oo bani aadamka ku kalifaya in ay ka cabsadaan jinka marka haddaad tira jinkii cabsidan badan ee laga qabo wax jira ma aha oo khuraafaad iyo been baa ku dhex jiri karta waxaa dhici karta inaad saxsanta laakiin haddaad dafirtid waxaad dafirtaa aayaad qur'aan intaas way caddahay baan u malaynay haddaba aynu soo guda dhacno markaynu ka nimaadno gogoldhicayni ama hordhicii barnaamijkaaynu ka warramayna ee caalamka dahsoon ee jinka iyo shayaadiintii iyo ibliis lacnadii dushiisa ha fuushe waxaynu marka hore tilmaamaynaa aan tilmaan guud aynu ka bixinaynaa horta jinkani waa maxay jinkii garanay inuu jiro qur-aankii inoo caddeey axaadiistii inoo caddaysay waa maxay waa yahay jinku horta kelmaddan jin waxa weeye waa waxaan la arkaynin halka insi uu yahay wax la arkayo laakiin jin bimacnaa majnuun qofkaasi wuu waalan yahay maxaa looga jeeda yacni caqligiisii baa tegey kanna ma arkayno waa bimacnaa jaani waa waxaan la arkaynin isha bini aadamku aanay qabanaynin jinku waa markaa waa makhluuq ilaahay uu abuuray oo bani aadamku aanay arkaynin
waxaana Allah subxaanahu wa ta'ala uu ka abuuray dabka ama holaca iyo ololka dabka naareed ayuu ka abuuray Allah subxaanahu wa ta'ala isagoo inooga warramaya wuxuu yidhi waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum Allah wuxuu yidhi subxaanahu wa ta'ala jimanka ama jaan waxaan ka abuuray hadda ka hor yacni insaanka ka hor waxaan abuuray min naari samuum dab holcaya carabadiisa laga abuuray idan waxa laga abuuray waa holacaad naareed dabka halkii malaa'igta laga abuuray nuurka iyagana waxa laga abuuray makhluuqaadka kan dabkaas iyo naartaas laga abuuray walcaadu billah jinka inagu ma aragno oo isha bini aadamku ma qabato Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yidhi innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum isagu dhabahantii wuu idin arkaa isaga iyo qabiilkiisu yacni ibliis iyo qabiilka uu ka soo jeeday jin ahiba way idin arkaan oo way idin arki karaan halka idinku aydan ka arkaynin marka waa iyagu wayna arkayaan inagu ma arkayno وصفة كالجين كويلين جينكو سيدو كلا وحيليهن مسلم يقال وسيد بني آدم كو مسلم يقال وليه أي وليه مسلم يقال قال دودنا سيد قال هذا صومالي قال هذا وحنو كده بني آدم كوبا أي أكلة الدوان تهي قولا وهي ستكريستنا من يهودا ما مجوسيا ما ملحدين أما أتيسا ماغنوتكس وحاكلة الدوان قولا وما عسكو شكتا من دين عصبا لا تمادو أي إليهن jimankuna oo iyaguna diima kala duwan ayay haystaan shakliyadana way ku kala duwan yihiin yani shakliga sida Ilaahay uu abuuray qaababka iyo functionska yani waxyaalaha ay qabtaan way ku kala duwan yihiin waxa dhici karta in jimanka qaar ay noqdaan kuwa awood badan oo qaar ay duuli karaan qaar ay socon karaan yani makhluuqaadka sida Ilaahay uu abuuray way kala duwan yihiin oo waa mukhtalif sida basharka laftigiisu uu kala duwan yahay midabyada kala duwan uu leeyahay madow iyo cadaan iyo bunni iyo wixii la midka ah saasoo kale ayay marka u kala duwan yihiin jinku wuxuu kala mid yahay basharka isagoo mukallaf سوى مكلف أو يعني واجبات كلا صاري بني آدم كوكلا إسنا الله صاري الله سبحانه وتعالى وكينو قلت الإمام سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحنو أبو ريو كل يبو الله سبحانه وتعالى جنك إيو إنسان كبا إن يعبدن أي مو يعني وحكا لو من أبو ريو إذا نسونا ومكلف أو حكمين يكون الله حسابنا يمالين تقيامه سيدا بني آدم كبا حسابنا maalinta qiyaame marka jinku waa sida basharka oo kale muslim iyo galbu leeyahay mas'uuliyadda bani aadamka saaranna isagana waa saarantay haddii aynu garanay jinki oo aynu waxoogaa ka tacriifinay ama waxoogaa sifooyinkaas ay leeyihiin aanu tilmaamnay bal aynu isweydiino haddaba shaydaankii waa maxay farqiga u dhexeeya markan shaydaankii iyo jinkii shaydaanku waxa weeye بمعنى كلمة وحي كتمي بعد وفقادي وكلمة وفقادي مركا الشيطان وحا نقون كرا جن iyo insiba labadu way noqon karaan oo gaalka jinka shaytaan baa loogu yeedhay gaalka insaankana sidoo kale shaytaan waa loogu yeedhi karaa oo waa fogaaday kaasi oo waa gaaloobay weeye kelmadatan shaytaan marka kelmadda shaytaan maaha kelmad guud oo la wada dhaho jinka maya qalad baa halka ku jira waayo jinku wuxuu leeyahay baan niri muslim iyo gaal marka haddaynu dhahno jinku waa wada shaytaan ma sax ma noqonayso gaalka jinka ayaa ah shaytaan oo uu madax u yahay ninka la dhaho ibliis iyo duriyadiisa caruurta uu dhalay waa maxay haddaba farqiga u dhaxeeya jinkii iyo shaytaankii farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya waxa weeye sidaynu sheegnayba shaytaanku waa gaalka jinka jinkuna waa jinsiga guud waa insaanka iyo bani aadamka halkaasoo kale ayuu jinku taagan yahay shaytaankuna gaaladiisa ayaa la dhahaa shaytaan oo ibliis ugu horeeyay
shaytaanku wuxuu kaga duwan yahay gaar ahaan ibliis wuxuu kaga duwan yahay jinka isagu cimri dheer buu ilaahay u siiyey oo waa kii Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanayay ilaahayow qala rabbi fanzirni ila yawmi yub'athun ilaahayow dibidhig buu yiri maalinta la soo saari ama maalinta la soo bixinayo ilaa iyo maalinta dibidhig Allah subhanahu wa ta'ala waa ka yeelay shaytaanka ibliis iyo gaalada jinka iyo gaalada kale iyagu shayaatiinta ah ee insaanka iyaga waa la lacnadi karaa oo lacnad baa ku socota oo naxariista ilaahay baa laga dheerayn karaa waxa loo dhanay lacnadi korkiisa ha fuusho gaar ahaan ibliis shaytaanka ugu weyn ee madaxda u ah laakiin jinka oo dhan ma lacnadi karaysid naxariistana kama dheerayn karaysid sababtoo ah muslim iyo gaal ay leeyihiin waxyaalahaas ayay ku kala duwan yihiin ayaan dhihi karnaa shaytaankii iyo jinkii haddaba ibliis ninka la dhaho waxaynu garanay inuu jinka ka mid yahay haddii uu jinka ka mid yahay maxaa cirka sare geeyey waagii hore midda kale culammada qaar baa waxay dhahaan ibliis laftigiisu malag buu ahaa marka bal su'aalahan isweydiinayna ma malag buu ahaa ma jin buu ahaa ma makhluuqaad kale ayuu ahaa ma isaga ayaa dhalay jimanka oo dhan subxaanallah su'aalahaas aynu ka weydiiyayaan insha allahu tacaala bal wixii aynu ka garanay ilaahay inooga furo aynu ka jawaabi doonaa horta ibliis culummada qaar saynu soo sheegnay waxay dhaheen waxa weeye malag buu ahaa malagiisi markii nebi aadam la abuuray ayuu gaaloobo macsiyo dembi buu ku dhacay dabadeedna ilaahay baa deeriyo naxariista ka fogeeyey qola sidaasay tidhi qolo kalena waxay tidhi maya shaytaanku abidkii malagna muu ahayn ee jin buu ahaa jinkaasaa markaa sare loo qaaday oo waa la karaameeyey cis iyo sharaf baa loo sameeyey oo ilaahay baa cirka geeyeyo malaa'igta ku dhex daray kadibna sifadiisii jinnimo iyo wixii uu qarsanayay iyo xaasidnimadii xiqtigii unbaa qarxay oo dabadeetana markii nebi aadam calayhi salaam la abuuray soo ifbaxay markaasuu allah subxaana wa tacaala ka deyriyey samooyinka uu ku yidhi ka hoobo labadaa qolada saxda ahi waxay ila tahay aniga sida saxda ahi waa qolada dambe ee dhahaysa ibliis waxa weeye jinka sababtoo allah baaba aayad qur'aana wuxuu ku leeyahay ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih marka laga reebo malaa'igtii markay sujuuday marka laga reebo ninka la yidhaahdo ibliis oo ka mid ahaa jinka kaana min aljinni ka mid ahaa jinka jinkina alif iyo lam baa la geliyey waxa laga dhigay macrifo kii la isla garanay yacni jinkii ka mid ahaa idan aayaddani waxay daliil u tahay laba shayba way ka jawaabtay marka koowaad waxay ka jawaabtay in aanu ibliis weligii malag ahayn sifo malagnimona weligii qaadanin ee uu jimankaas iyuu ka mid ahaa talabaadna ay ka jawaabtayna waxa weeye inaanu ibliis ahayn aabbaha dhalay jimanka oo dhan sababtoo hadduu aabbaha dhalay jimanka oo dhan wuxuu alla odhan lahaa kaana abal jin yacni aabbaha jinka ayuu ahaa laakiin meeshan min aljinni buu yidhi jinka ka mid ah ama ka mid ahaa idan waxay aayaddani ina tusinaysayo daliil u tahay in uu shaytaanka ibliis la yidhaahdaa uu ka mid ahaa jimanka laakiin aabbahana ma aha dhalay jimanka oo dhan mana aha isagu malag ee jimanka ayuu ka mid ah jimanka ayuu allah subxaana wa tacaala yidhi ayuu ka mid ahaa ninka la dhahda ibliis deetana fafasaqa can amri rabbi arrinkii uu ilaahay subxaana wa tacaala uu faray ayuu ka faasiqoobo waa ka baxayo waa ka gaaloobay oo ilaahay baa markaa lacnad dushiisa saaray oo naxariistiisa ka dheereeyey sababta ilaahay naxariistiisa uga dheereeyeyna waxay ahayd amarkii la faray ee ahaa u sujuuda nebi aadam ee uu dafiray intaynaan horta gaadhin ama aynan ka warramin arrintaas u sujuudidda nebi aadam calayhi salaam in loo sujuudayo waxaan tilmaamaynaa inuu jinku uu ahaa makhluuqaad ka horreeyey ama laga hor abuuray bani aadamka والجنة خلقناه من قبل من نار السموم الله سبحانه وتعالى وحين يجي بني آدم جنكنا وحانو هذا كهور كأبورني أولئك النار marka jinku wuxuu deganaa dhulkan ayninu ka deganahay ayuu waagi hore deganaa
marka way islaayeen baa la dhahaa oo dagaala dhex maray dhulkii bay fasahaadiyeen dhiigii bay daadiyeen marka jinkan la dhaho ibliis ayaa waxa la tilmaamay inuu ahaa caabid ilaahay buu caabudi jiray oo nin taqiya buu ahaa waa intaanu gaaloobin waagii hore intuu jinka ka mid ahaa dadkii jimankii dhulka meeri jiray uu ku jiray isagu kama mid ahayn kuwii dhulka fasahaadiya ama dhiigga daadiyey ayay dhahaan culummadu kadibna malaa'ig baa la soo diray oo isagu ku jiro dabadeedna waxaa la halaagay jimankii dhulkan joogi jiray waxaana loo fogeeyey meelaha jasiiradooyinka iyo meelahaas dhulkii inta badan waa laga fogeeyey meelaha fogfog baa la geeyey jasiiradooyinka iyo meelaha xidhxidhan meelahaasaa jinkii lagu ooday oo dhulkiibaa laga kaxeeyey ibliisna saraa loo qaaday oo xagga samada ayaa la geeyey muddu marka xaggaa joogay ilaa maayo allah subxaanahu wa tacaala uu doonay inuu abuuro makhluuqan cusub ee dhoobada ka samaysan ama ciidda iyo biyaha laysku daray ee ah nebi aadam calayhi salaam malag buu alle subxaana wa tacaala uu faray inuu soo qaado ciiddaas oo midabyo kala duwana mid madow mid caddaana mid brown ah midabyada kala duwan ee ciiddu ay ka kooban tahay kadibna ciiddii unbuu allah subxaana wa tacaala wuxuu amray in lagu daro biyo dhoobay noqotay dhoobadaasuu allah subxaana wa tacaala uu sawiray oo wuxuu u sawiray suuraddan bani aadamka ay iminka leeyihiin ama suuraddii uu nebi aadam calayhi salaam uu lahaa ayuu allah subxaana wa tacaala u sawiray deetana waxay noqotay dhoobadii mid qallafsan salsaalin kalfakhaar dhoobo qallafsan bay noqotay shaytaankii ibliis lacnadii korkiisa ha fuushe nebi aadam oo dhooba ah oo aan neeftii lagu afuufin ayuu ku dulmeeri jiray yacni jidhkii nebi aadam calayhi salaam oo la dhaho xitaa jawfkiisa yacni calooshiisuu geli jiray uu ka bixi jiray oo wuxuu odhan jiray haddii laygu kaa sallito kuwaan ku caasinaya yacni haddii arrin xaggaaga ku saabsiisan laygu dhaho uu qabo waan ku caasinaya oo yacni waxa markiiba muuqatay xaasidnimadiisii iyo xiqdigii uu u qabay nebi aadam calayhi salaam ayaa soo ifbaxay allah subxaana wa tacaala wuu ogaa mustaqbalkana wuu ogaa qaybkiiyo waxa soo socdana wuu ogaa arrintan oo dhan allah subxaana wa tacaala way u qorshaysnayd oo waxaan oo dhan hore ayuu usii dabbaray mustaqbalka iyo waxa dhici doona wuu ogaa wuxuuna ogaa inuu ibliis uu noqonayo ibliiska kan iminka aynu naqaanay shaytaanka ah xaasidnimadii iyo qalbigiisa balaayada markay ka buuxdayna waa u jeeday rabbigeen subxaana wa tacaala laakiin arrin buu doonayaa rabbigeen subxaanahu wa tacaala in uu meesha tan ay dhacdo oo ah in nebi aadam calayhi salaam laga saaro jannada oo la geeyo dhulka nebi aadam calayhi salaam ruuxdii baa lagu afuufay oo allah baa ku afuufay ruuxdii dabadeedna wuxuu amray alle subxaana wa tacaala dhammaan malaa'igtii ku shuqulka lahayd basharka inay u sujuudaan makhluuqan cusub iminka la abuuray oo ah nebi aadam calayhi salaam way wada sujuudeen fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ila ibliisa aba dhammaan malaa'igtii way wada sujuudeen kulligood marka laga reebay ibliis oo dhex joogay malaa'igta manuu ka mid ahayn malaa'igta ee jinni buu ahaa marka allah weydiiyey subxaana wa tacaala war maxaad u sujuudi weyday wuxuu idhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin ilaahayow aniga waxaad iga abuurtay naar kanna waxaad ka abuurtay dhoobo waan ka khayr badanahay buu leeyay ana khayrun min anaaba ka khayr badan subxaan allah meel aan caqligaaga iyo fikraddaada iyo aragtidaada aan loo baahnayn oo ay taagnayd amar allah subxaana wa tacaala amar baa ilaahay uu bixiyey oo ahayd inaad wixii lagu amray inaad sideeda u fushid ayuu maskaxdiisa ka isticmaalay oo wuxuu yidhi kan dhooba laga abuuray ana naar baa laga abuuray anaa naarta ah oo ka fadilan oo ka wanaagsan saasuu wuxuu qiimeeyey allah subxaana wa tacaala waa deeliyey marka فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين لعنة ضيدي نحريست إلهي بن كاديري إلا ما ننت قيام العذاب النار بالله بلن قاضي وحليني كدق وكهوب الجنة سبحان الله الله سبحانه وتعالى وحكل النبي آدم وقدقي إنك لدي إبليس إنه علو ليهي أو نعبو يهي أو عدو يهي إسكيلا لبالغو يري ولا امتحان النبي آدم يحاسكيسي حاوى يغو جنة جوغا وقيتك هاعونين بالليل هاو دوانين مركو هورها عونين وحكو هوريسا هاو دوانين
jinkii ama shaytaankii ibliis ay waxa la dhahaa si uu buu soo galay jannadii ila jannada ka hooba markii hore la yiri haddana si buu soo galay oo dadka culimada qaar ay dhahaan may wuxuu soo maray masbu calooshiisa galay ama abeeso ayuu caloosheeda galay waa warar israa'iiliyaad طبعا war sax ah ma jiro laakiin si ay u soo gashaba waxay ahayd si uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay alla wuu arkayay markuu soo galay jannada wuu qaban karayo wuu gubi karayo isagoo halkiisa jooga laakiin allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu qorshaysnay inay sida tan ay u dhacayso ayna u dhacdo marka shaytaankii wuu soo galay wuxuu ku booriyay xaawa iyo nabi aadam ba inay cunaan geedatan oo wuxuu ku yiri geedatan waxa leedinku diidaya inaad noqotaan malag iyo inaad wali nolosha aad ku wartaan jannada sababta darteed ba leedinku diiday geedka cuna subhanallah arrintii buu ku celceliyay nabi aadam calayhi salaam nin iimaan leh ah waa diiday ilaa maalintii dambe siduu ugu waday ee uu dhagartan u maleegay markii ugu dambeysay faqasamahuma inni lakum la min an-nasihin wa udart oo alla haweyna rahmaanka abu magiciisa ku dhaartay wuxuu yiri wallahi billahi tallahi ilaah ban ku dhaartay waan idin nasteexaynaya aadamo iyo xawaay waan idin nasteexaynaya dhaar buu galay nabi aadam markuu dhaartay ayuu cunay geedii sababta muu malaynaynin in noole ilaahay uu abuuray uu magaca allah ee weyn uu ku dhaarto been saa uu malaynaynin waa cunay markaa فعصى آدم نبي آدم مركع عصيان بوليني أو وحي الله فرينا ودوانين أي ودوان جدنا واعوني لبدو دي بواعوني مركع فأكل منها لبدو دي بواعوني جد طبعا إبليس وافر مركع كان الله سبحانه وتعالى وحو فر مركع أو لبدو دي باو كيري كهوبة الجنة حق كهوبة الجنة بويد ربي سبحانه وتعالى والنبي آدم يحاوب أردلك حقيسة أي إذن نقنيسة ميل ديغاني دينها مركع وحا كسود ديغي حق جنة النبي آدم عليه السلام يحاسكيسي حاوى يسيلوك لإبليس لعنة دوشي سهفوش أو يسوون بلان قاضي إن يعني عداوة يعولات وعديستي إنه كقاضي دون البشر النبي آدم عليه السلام وحول إله يوم إله بان كنتارت لأغوينهم أجمعين كوا كوان ضوفصاني يبو إله يوم ودمانتود وان دوفساني ربنا وحده سبحانه وتعالى واحد دوفسان كريسيد اوديسيد او ييرو واحد استعمال كريسيد ماد اديكسان كريسيد وسيله اما طريقه اما جيدك wax allaali waxaad adeegsan karaysid codkaaga ama faraskaaga ama lugtaada aad ku kaxaysan karaysid ku kaxaysid دمانتنا إن الله لي أنت قرع الله سبحانه وتعالى عذاب النار ذي جهنم أين قلنا يا بول تتك أضمد إذا وناكسنا وح سلطان يعني وح أود أكمله يعني إلا عبادك منهم المخلصين أنا ضمد هذا مخلصين تاهي لها عبادة هذا كوكاريا لي هو مركا لقي مادو انت كلوان ضفصني يا بول الشيطان كإبليس لعنة ذي دوشي سهفوش وأنو كحق طبعا مليهيسي يجي لديسي waxay noqotay mid xaqiiqo ah oo mid dhab ah oo bani aadamkii dad badan oo malaayiin ah ayuu duufsaday oo jaruga talaabsaday dhagartuu maleegayna waa u guuleysatay النبي آدم عليه السلام مركي ومقالة ويمي دولكا وحا مركي بالله دلي وبد فربضان وبوريي هابيل يا قابيلنا وحينو نقانين دلي ولالكي هابيل أرنتانا وحا كدن بيي وصوقر شيء وخططي بلانكا كاني إبليس لعنة دي دوشي سهفوش وقابيل وحو دقيستي وركي وإبليس أخريناي يحان شاشقي يوسواسنتي وإبليس وكوهيي نكي لو ريجري قابيلنا ولالكي أيو دلي هابيل تلكي ugu horeeyay ee dhulka ka dhaca bani aadamku ay isku sameeyaan ayuu qaabil ku kacay falkana waxa soo maleegay ibliis lacnadi dushiisa hafuushe hadda ka horna nabi aadam caruurtiisa waa u sheegayo waa uga digay cadaawada iyo colaada iyo nacabka uu ku yahay ibliis caruurta nabi aadam wuxuuna ku yiri war ku tusaale qaata oo waxa ku qaata sida ibliis uga soo saaray aabihiin iyo hooyadin jannada subhanallah marka ninkan waa cadow oo culbu kuleeyahay adduunyo aakhirina guuleysatid ba marrabo ilaahay banu ka magan galnay fitnadiisii
way sii socotay markaa hawshiisi isagu way sii socotay wuxuu duufsan karaayo waa duufsaday ibliis ila maaya la gaadhay in uu markii dambe uu bilaabay dembigan weyne zinada inuu ku dhex faafiyo mujtamacaadkii kadibna dembiyada kale waaweyn aklu maal alyatiim xoolaa agoon oo la cuno ribadii waxyaalahaasoo dhan ayuu soo dhex geliyey mujtamacaadkii waxaasoo dhan uu qorsheynayay ibliis lacnadii dushiisa ha fuushee ilaa iyo laga gaadhayo qoomkii nebi nuux laakiin intii u dhaxaysay nebi aadan iyo nebi nuux oo lagu qiyaaso 10 qarni 10 qarni waxay noqon karaan 10 kun oo sannadood 100 kun oo sannadood 1 milyan oo sannadood intay doonaan bay noqon kartaa waayo qarnigu 1000 sannadoodna uu noqon karaa 100 sanana uu noqon karaa marka 10 xilliyood oo kala duwan baa u dhaxaysay nebi aadan iyo nebi nuux intaas oo dhan dadku ilaahay kama kufriyeen yani shirki iyo lamaysan imanin in ilaahay qaybka ay caabudaan lamaysan iman dadku waxay dad muslimiina laakiin dadku waxay ku dhacayeen dambiyadan ama dilka ama zinada ama ribada ama xoolaha goomada la cuno dambiyada way ku dhacayeen waxaasoo dhan waxaa soo khideeyey gaalka kan ibliis lacnadii dushiisa ha fuushe ilaa iyo laga gaadhay cahdigii nebi nuux calayhi salaam markaas ayaa waxaa dhacday shirkigii ugu horraysay iyo gaalnimadii ugu horraysay ee bani aadamku uu ku kaco oo nebi nuux calayhi salaam xilligiisii ayaa waxaa dhintay 5 wadaad oo culimmadii waaweynaa ka mid ahaa oo la odhan jiray wud iyo suwaac iyo yaquut iyo yacuuq iyo nasri 5taa wadaad markii ay dhinteen ayay dadkii tabeen oo aad bay u jeclaadeen oo waxay dooneen yacni inay xasuustaan si ay markaa cibaadadoodii ay u sii siyaadsadaan marka ay dhinteen ayuu ibliis u yimi iyagoo murugaysan deetana intuu soo qaatay suurad bani aadamnimo ayuu soo dul istaagay xabaalahoodii oo wuxuu ku yidhi war nimanka kan aad xasuusanaysaan ama aad xusaysaan si aad u xasuusataan aan idiin sameeyo timthaal yacni statue waa sanam aan idiin sameeyo aad ku xasuusataan way iska yeeleen sanamkii buu sameeyey wud iyo suwaac iyo yaquut iyo yacuuq iyo nasri ayuu sanamyo uga sameeyey waa weyn marka jiilkii koowaad may caabudin jiilkii koowaad ilaahay baa rumaysnay laakiin dembigan weyn bay ku dhaceen ee ah in ay ka barakaysan jireen sanamyada walcaadu billah ama ay ku xasuusan jireen markay maraanba sanamka markay arkaan ay xasuusan jireen wadaadkii weynaaye wuddi ama yacuuq iyo nasri iyo kuwii wixii la midka jiilkii dambe markuu yimi jiilkaasi markii uu dhammaaday jiilkii dambe markuu yimi ayuu ibliis sheekadiisii bilaabay iyo qorshihiisii wuxuu ku yidhi aabbayaashiin waxay caabudi jireen sanamyada kuwiibaa markaa dul ictikaafay oo ka barakaystay oo sanamkii ilaahay kayrkii la caabuday waxaana dhacay dembigii ugu horreeyey ama shirkigii ugu horreeyey gaalnimadii ugu horraysay ee ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo waxay ahayd cahdigii nebi nuux calayhi salaam nebi nuux baa markaa la soo diray 950 sannadood buu qoomkiisii ugu yeedhiyey xaqa way ateeci waayeen hadhiya habeen kor iyo hoos intaba waa ugu dhigay subxaan allah way ateeci waayeen wax yar ayaa ka raacay oo waxaa la dhahaa 950 sannadood waxa keliya ka rumeeyey nebi nuux 8 qof subxaan allah kuwa ugu badan waxay dhahaan 50 qof bal waxaad qiyaastaa ruux bani aadam ah oo 950 sannadood habeen kasta maalin kasta dadka la kulmay kor iyo hoos ba ugu sheegay subxaan allah waa haddana 8 qof ama 9 qof tira aan boqolba gaadhaynin ay rumaysan intii badnaydna ay gaalnimada ay ku dhimatay waxaasoo dhan waxaa maleegayay shaytaankii ibliis lacnadii dushiisa ha fuushe walaalayaal mawduuca kani waa mawduucaad dheer سلسلة أما عجلة إن شاء الله تعالى طيب تذكر أيان كجو الرمضان شيطان كإبليس يسدو غلومي بني آدم يوصل لها يد أو استعماله شدتك أو استعمالية لابوين كوكوكعو سدو كلا وحنا كو الرمضان هدي لها ينو إدمو مسيرك يا عواقب حمدا يا عرب دمبات كإبليس يعد الراعي وحن كلا إن شاء الله تعالى وحكت المامدون نمن
nimankan la dhaho jinku isaguna wuxuu leeyahay lab iyo dhidigo way sida bini aadamka oo kale weeyaan oo iyaguna way tarmaan kuwana wax baynu ka tilmaami doonaa insha Allah taala sidii ay ku soo islaameen iyo qisadii dhexmartay nabi Muhammad iyo jimankii ayaynu wax ka tilmaami doonaa inta aynu insha Allah taala ta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa hada wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.